kulan xog isweydaarsi oo ay soo abaabuleen waaxda xiriirka ee qurba joogta Soomaaliland u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo ururka Amuud Foundation ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda, hay'adaha dawliga ah iyo qurba joogta Soomaaliland ee daneeyo horumarka Soomaaliland ayaa munaasabadaasi ka qayb galay. gudoomiyaha ururka Amuud Foundation Maxamuud Cigaal oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay waxyaabaha sanadkan ay ururahan doonayaan inay bulshada Soomaaliland la wadaagaan. aan 25 sanadood ee Amuud u taagneed inay dadkooga wax ku soo celiyaan annaka ummadda iyo dhulka iyo wadanka iyo waxay nagashadeen amaahbay nagashadeen. alxamdulillah waxaan rabnaa inaan amaahda la nagashaday inaan soo celino wixii mithqaala daratan ahayd wax yarna haatee inaan ku soo celino taas annaka naga go'an. marka waxaan rabnay imika aan goosanay sanadkan inaan bal qurba joog had iyo goor moogtay dadka ma dhageystaan inaan intaan imaano dadkayagii nidhaahno waxaasan qabanayna 25 sanadood ee soo dhaafay maxaan rabnaa maxaa inoo talaa maxaan qabsan karnaa innaka dhulkan leh innaka caruurteena aan uga taganaa maxaa inoo dana oo aan qabsan karnaa haddaan nahay qurba joog iyo haddaan nahay qolqol joog. taas ay hayd alxamdulillah shir wanaagsan annaka ugu mahad celinayna mar labaad iyo mar saddexaadba wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda qurba jooga ee diaspora oo xasan nagala joogo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. sarkaal xasan afgaab oo ka mid ah xafiiska xiriirka qurba joogta Soomaaliland ee wasaaradda arrimaha dibadda oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay doorka wax ku oolka ah iyo kaalmaha muuqata ee Amuud Foundation ay ku leedahay horumarinta iyo wax u qabashada bulshada Soomaaliland. ujeedada kulankan waxay daaray wada tashi iyo sidoo kale isku xidh shaqooyinka mid ka mid ah shaqooyinka muhiimka ah ee xafiiska qurba joogga ee wasaaradda arrimaha dibadda waxa ka mid ah inaanu abuuro xidhiidho wada shaqayneed iyo iskaashi aanu ka dhex abuuro bulshada qurba joogga Soomaaliland ee firfircoon iyo qaybaha bulshada Soomaaliland hay'adaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. waxa xusid mudan in hay'adda Amuud runtii ay tahay hay'ad ku dayasho mudan role model aan oran karo wada shaqayn downala leh sidoo kale muddo dheer kaalin weyn oo firfircoon oo muhiim ah kaga jira dhismaha iyo horumarka dalka. Cabdi Daahir Aayo oo ka mid ah saraakiisha ururka samafalka ee Amuud Foundation ayaa isaguna halkaasi hadallo muhiim u ah bulshada Soomaaliland ka jeediyay. technical skills-ka dadku ay leeyihiin halkan lagu sheegay in la sii kordhiyo in shaqo abuur loo sameeyo dadka ka soo baxay iskuulaadka inaynu bedelno dadka ajaanibka ee meelaha kale inooga imanaya shaqooyinka qaatay ayaa loo baahan yahay. ka qaybgalayaal ka socday dugsiyada farsamada gacanta ee Hargeysa iyo ururka Afayoko ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda ay leeyihiin barashada xirfadaha farsamada gacanta iyadoo geestoodana ay halkaasi ka hadleen aadan Yuusuf oo ka socday bahda waxbarashada Soomaaliland iyo tan Maxamed Cabdi Michael oo ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland.